diyaaradii ugu horeysay oo sida rakaab ayaa soo caga dhigatay garoonka cusub ee Moqor ee ku yaala duleedka degmada Cabudwaaq. garoonkan oo dhawaan lagu sameeyay dayactir aad u ballaaran ayaa la sheegay inay ka soo degi karaan diyaaradaha caadiga sida kuwa rakaabka iyo kuwa sidoo kale ganacsiga. guddiga dhismaha airportka ayaa sheegay in uu diyaar yahay garoonka cusub ee haatan ay yeelanaysa magaalada Cabudwaaq ee Moqor, waxaana diyaaradii ugu horeysay oo maanta ka soo degtay ay siday rakaab. diyaaradda Maandeeq ayaa noqotay diyaaradii ugu horeysay ee soo caga dhigatay garoonkan galabta, waxaana guddiga airportka ay sheegeen dadaal dheer kadib in haatan uu diyaar yahay garoonka labaad ee Cabudwaaq ee Moqor ayna ka soo degi karaan duulimaadada tooska. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. waxaanu joognaa airport Moqor, waxaanu sameynay hadda bishii labaad sanadkan bishaasaanu sameynay waa temporary, waxana waa u dhiman yihiin. galabtay baa waxaa soo degtay diyaarad ka soo duushay Muqdisho oo safar dad safara waday, rakaabkiina waa joogaan, garoonkiina waa lagu degi karaa buu yiri, inkasta oo gaaban yahay oo yahay 800 oo mitir 800 oo mitir weeye. waka hadda waanu dhex taaganahay, waana shaqeeyay. diyaaradiina galabtay bay ka degtay iyadoo si nabad qaba ku soo degtay, bay haddana si nabad qaba ku duushay. salaatu wassalaam ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. iqaarta sharafta leh waad ku mahadsantihiin ka soo qaybgalkan garoonkan Moqor ee degmada Cabudwaaq. ilaahay waxaan uga mahad celinayaa boqolkiiba boqol. ilaahay noo taxkumiyay oo noo ahaysiiyay inuu noo taam noqdo. waxa weeye diyaaradii ugu horeysay ayaa galabta oo haddii la ku yahay isniin ah, taariikhduna ay tahay 10ka bisha Maarso ka soo degtay si nabadgelyo ah oo buuxda, oo haddii la ku beeloodyadii ay ku farxeen oo ay la dhaceen, oo haddii la ku yahay wax haba yaraatee aysan lahayn nuqsaqaana. si fiican baa ilaahay noogu taxkumiyay, si fiican bay noogu soo degtay. waxaan u mahad celinayaa diyaaradii ugu horeysay soo caga dhigatay garoonkan oo si geesinimo leh ayadoo ugu soo birartay markii ugu horeysay. ilaahayna wuu ku guuleeyay oo ayadoo aad iyo aad u faraxsan been ka soo degatay kana duushay. waxaan aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa in allaala iyo intii ka qayb qaadatay garoonkaas inuu ahaado dadweynaha iyo cid walbaaba, cidii qalab ku kaalmaysay, cidii xoog ku kaalmaysay, cidii cod ku kaalmaysay, cidii ku kaalmaysay haddii la ku yahay raalli ahaan inuu garoonkaasi uu dhismo uu ahaado ku kaalmaysay oo moral fiican ku kaalmaysay. aad iyo aad baan markii idinku mahad celinayaa. James Ismaan oo ka mid ah ganacsatada degmada ayaa sheegtay inay ku guuleysteen dayactirka iyo sidoo kaleba hirgelinta dhismaha garoonka labaad ee Moqor kadib dadaal lagu sameeyay maalmihii u dambeeyay oo lagu dayactirayay, waxaana ay sheegtay in haatan ay si toos ah uga soo degi karaan diyaaraduhu. arxin aad baan u mahad celinayaa airportka Cabudwaaq Moqor oo aan aad u dhigtoonay oo aad u sameynay. guddiga airportka aad ashqaal u sameeyeen, juhdi badan ay galiyeen, aan aad u dadaalay. aan gaba airportkii weynaa naga xirmaa kii aan ku sii degi lahayn inaan diyaarsano aad baan waxaan ku ugu dadaalay. ilaahayna waa nala garab galay. guddiga airportka oo mahad celinayaa. aad bay noo firfircoon oo aad dadkii deegaankii horumarinta uga shaqeynaya weeye. annaguna waa la dadaalay. dadka haduu dadaal qabsado wax qabsan karana wax kasta uu qabsan karaa. wax walba waa isxilqaan baanu ku dhisannay, firfircooni baanu ku dhisannay. galabta diyaaradii ugu horeysay baa soo degtay, si kalsooni lahayn uga duushay. rakaabkii baa hadda nala taagan, maasha Allah. ilaahayna waa nagu guuleeyay. waa aniga Shamis Ismaana aad iyo aad baan ugu farxay galabtay. damiirkayguna boqolkiiba boqol kor buu oo sareeya. ay tahay sababta airportka yagii labaad ee Moqor maanta rakaabka soo degay, si kalsooni uga soo degay. birina duulimaadyo badan aan sugayno. ilaahay baa noo gargaaray, ilaahay baa noo taxagumiyay. guddiga airportka oo mahad celinaya, saxaafadda oo mahad celinaya, dhalinyarada caawida oo mahad celinaya. intii ka soo qayb gashay iyo intii hadda maqlaysaba aad baan ugu mahad celinaya. ciidanka dawladda waa mahad celinaya. diyaaradda soo bareeday waan u mahad celinaya. insha Allah balkariim amiin. kabtan amiin waa u mahad celinaya firfircoodiisa. wuxuuna doonayaa inuu airportka Cabudwaaq dah furay maantay. qaar ka mid ah rakaabka saarnaa diyaaradda Maandeeq ee galabta ka soo degay garoonka Moqor ayaa uga mahad celiyay guddiga airportka iyo ganacsatada magaalada sida ay ugu dhiirideen hirgelinta garoon labaad oo laga hirgeliyay magaalada Cabudwaaq.
ilaahay baa mahad iska leh marka koowaad midda labaad cid kasta oo mahad iska leh cid kasta oo isku dayday inay samayso ama hirgeliso garoonkan si wanaag anigu waxaan ka mid ahay kooxdii koowaad ee ka soo degta galabta garoonka Moqor ee Caabud Waaq laakiin qiyaasaha naloo sheegay waxa weeye inay ku dhammaatay guul lagu gaari karo insha Allah tacaala ka kale lagana soo degi karo lagana duuli karo guushaas inay ku dhammaatay baan xogteeda haynaa oo aan ka maqlaynay guddiga iyo ninkii pilotka ahaa ee diyaaradda waday maxamed cabdi oo mataqaana ka mid ah dadka degan degmada Caabud Waaq aniga waxaan ka mid ahay rakaabkii soo raacay diyaaradda ee ugu horeysay ku soo degtay garoonkan macmalka ma sha Allah aad baan u bogaadinaynaa Soomaali haddaan nahay dad aad u firfircoon baan nahay oo mataqaana wax walbana geesinimo u baahan tahay Allahna wuu nagu garab galay waana bogaadinaynaa waana mataqaana ku soo dhawaanay garoonka si fiican oo nagu soo dhaway waa garoonkii labaad ee yeelanaysa magaalada Caabud Waaq kaasi oo si iska wax u qabsaa bulshada qaybaheeda kala gedisan ay barkaasi uga hirgeliyeen magaalada Caabud Waaq waxaana muddo bil ah oo uu ku socday dayactir iyo dhisme lagu guuleystay galabta in markii ugu horeysay ay soo cagalagatay mid ka mid ah diyaaradaha rakaabka kuwaasi oo siday rakaab ay ka soo qaadeen magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxaana guddiga airportku uu sheegay haatan in uu diyaar yahay garoonka maqal isla markaana dhawaan si toos ah ay u bilaaban doonaan duulimaadadii tooska ahaa Bashir Yusuf Nadaara TV-ga caalamiga ee dalka magaalada Caabud Waaq